Odigaan aad u jeedaan wuxuu ka imaanayaa baadiyaha waxaa arkay wiilkiisa wuxuuna bilaabay isla markaa in uu ku soo tuuro feel odigii ayaa ku dhacay feelka odigii ookiyaalaha ayaa ka dhacay dhulka ayuu ku dhacay wuxuu bilaabay inuu raadiyo ookiyaalaha wiilkan wuxuu ku soo jeesnaya waaldiga wuxuu ku leeyahay odigan waa inaad banaanka u saartaa odigan wili wuxuu raadinaya ookiyaalihiisa wuxuu helaya ookiyaalihiisa wuxuu ku leeyahay odigan waa aniga aabahayga waxaad ku tiraahdaa wiilkaaga bil ka hor ayuu shil ku dhintay ha u ogolaan inuu soo galo gudaha odiga meesha ayuu ka soo istaagaya wuxuu damcay inuu gudaha soo galo waaldiyaha ayaa ku soo dhacay wuxuu ku leeyahay xagee baad socotaa odigu wuxuu ku leeyahay waxaan u socdaa inaan la kulmo wiilkayga waaldiyaha waa murugoona hoos ayuu fiirinaya odigana wuxuu ku leeyahay adar waa ka xumahay wiilkaaga wuxuu geeriyooday bil ka hor shil gaari ayuu ku geeriyooday odigii waa naxaya isla markaa dhulka ayuu ku dhacayaa waa murugoonaya odigii ayaa oonaya wuxuuna bilaabay in isla hadlo wuxuu leeyahay wiilkayga sidee buu aniga iiga tagraa wiilkayga waxaa malaynaya in uu nool yahay been ayaad ii sheegaysa ayuu leeyahay odiga aad ayuu u murugoonaya odiga asigoo iska oonayo waaldiyahana waa fiirinaya waa murugaysan yahay meesha ayuu kasoo istaagay waxaa kasoo baxaya xafiiskii waaldiya ayaa kasoo doorbaya wax ku leeyahay adar waxaa ka tagtay shandadaadii laakiin odiga kuma soo laabanaya wiilkan meesha ayuu ka daawanaya aabiisa waxaa ku dhacayo waaldiya ayaa shandada soo qaaday wuxuu leeyahay aabbaa shandadan ayuu ka tagay ninkan wuxuu ku qaalinaya waaldiya wuxuu ku leeyahay shandadaad oo aabahii ka tagay waa in armaajadaad ku ridaa cabaar kadib wuxuu kasoo istaagaya meesha wuxuuna furayaa armaajadii wuxuuna leeyahay waa in aan ogaada aabahayga shandada wuxuu ku waday waxaa u soo baxaya warqad caafimaad oo caddaynaysa aabahiisa kansarka oo qabo in dhakhaatiirta baarista ugu dambeysay waxay u sheegayaan in maalmo kadib in uu asiga oo geeriyoonayo waa murugoonaya midaas markuu ogaado mar kale wuxuu fatishaa shandadii waxaana kasoo saaraya lacag aad u fara badan markuu lacagta arko wuxuu ogaanaya aabihiisa wuxuu haystay in uu beeciyey beelihiisa macaldabigi oo asiga jeclay inuu iska iibiyey wiilka markuu midaas arko oo sii yaabaya wuxuu arkaya hadan mar kale boombalihii oo yaraantiisa uu ku ciyaari jiray oo u soo iibiyey aabihiisa wiilka markuu midaan arko oo ooniya wuxuuna xasuusanayaa mar walba aabihiisa bis inuu jeclay inuu noqdo dhakhtar ilinta ayuu iskaliya wuxuuna bilaabay in uu raadiyo aabihiisa wuxuu imaanaya dhowr maalmood kadib tuuladii wuxuuna bilaabay inuu raadiyo aabihiisa wuxuu tagayaa gurigoodii hore wuxuuna arkaya in uu xiran yahay gurigoodii hore dhinacyaha ayuu fiirinaya wuxuu arkaya wiilkan dariska oo meesha fadhiyo wiilkii ayuu imaanaya dilbaha ayuu ka qabsanaya wuxuu leeyahay aabahayga ma aragti wiilkii ayaa ku dhahaya waan ka xumahay iga raal noqo aabahaada 2 maalmood ka hor ayuu geeriyooday markii ugu dambeysana magacaaga ayuu sheegayay marka oo maqla midaas aad ayuu oonayaa midda uu ku sameeyay aabihiis aad ayuu uga xumaanaya wuuna oonayaa fadlan hilmaama in aad furato calaamada gambaleelka si aad ula socoto muuqaal walba aan soo gelino muuqaalkan leegare sheergare oo asxaabtaada la wadaag intaas waxay inoo tahay dhiirigelin